ciidankii ugu badnaa oo taabacsan mucaaradka Soomaaliya ayaa soo galay gudaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. 3 gaari oo ciidanku ay lahaayeen waa la qabtay. mid waxa la sheegay in Cali Guudlaaba uu lahaa oo guriga Shariif uu ku sii jeeday, labana ay lahaayeen Khayre iyo Sheekh Shariif. kuwa kalena sidii loo qorsheeyay ayay ku tageen guryaha xubnaha mucaaradka, waxaana socanayo dhaqdhaqaaq aan inaba caadi ahayn oo mucaaradku ay ku majaxaabinayaan hab xukunka madaxweyne Xasan Maxamuud. haddaba ciidamadan waayo cidda abaabushay, sidayse wax u socdaan, maxayse yihiin daawadayaal ciidankan iyo awoodooda. waxaan ku hayaa haddii alla weyne laga helo oo aan kula wadaagi doonaa muuqaalkeennana aad ku daawan doontaa ciidankii ugu badnaa oo soo galay gudaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. sidoo kale waxaan eegaynaa waxay hadda cagaf ku jirtaa dhulkii Dabley saraakiil xigeenada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka soo horjeeda wasaaradda gaashaandhigga. waxaan xogta ku helaynaa in la siiyay sarkaal caana. haddaba waa kuma sarkaalkaas? dhulboobka xamar cidina ma dhaafin, xitaa qayb ka mid ah wasaaradda gaashaandhigga halkii ciidanku Dableyda dabridka ku sameyn jireen waa la qaadanaya, ganacsataa la siinaya iyo saraakiil ciidan. haddaba sarkaalkaasi waa kuma? isaguna warbixintan ayaan ku hayaa mowduuceena ayaan ku eegaynaa shararkii mucaaradka iyo wararkaas oo dhan. soo dhawow, ha ilaaw inaad like saarto, aragtidaada noo reebto, saaxiibadaan usii shaargareyso. waa mahadsan tahay. waxaan ku bilaabayaa ciidan aad u fara badan oo ay leeyihiin xubnaha mucaaradka ayaa soo galay gudaha caasimadda Soomaaliya 12 saacadood ee ugu dambeeyay. ciidankaasi qaarkood gudaha magaalada ay ka soo goosteen oo guryaha Shariif iyo sidoo kale Khayre ay ku sii jeedeen. sababtuna waxay ahayd in ay ka gadoodeen markaasi hab xukunka madaxweyne Xasan Maxamuud. qaarkoodna waxayba ka cabanayeen sida la leeyahay xuquuq la'aan. waxaan xogta ku helaynaa in markaasi ciidankan 2 gaari oo ka mid ah oo Shariif iyo sidoo kale Khayre oo ku sii jeedo guryahooda, midna lagu qabtay Dayniile, mid ka kalena lagu qabtay agagaarka xeebta Liido ee Muqdisho, waliba dhanka markaasi Miranaayo xigta. 2 gaariba waxay ku sii jeedeen baa la yiri guryaha madaxdii hore ee dalka ee dagaalamay 3, 4 ilaa 5 Juun ee sanadan. Muqdisho dagaaladii aad weydeen ka dhacay raggii qaybta ka ahaa iskala habaa la yiri. gaari kalena wuxuu ahaa baa la yiri gaari ciidan oo uu lahaa madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaabe Xuseen, laakiin ku sii jeeday guriga Sheekh Shariif. sababtu ugu jeedayna ma madaxweynaha la siiyay, ma qorshe kale oo lahaa lama oga. 3 gaadiid iyo darawalidii waday gacanta lagu hayaa, baaris ayaana ku socota sida laamaha ammaanku ay leeyihiin. tani markii waxay muujinaysaa in mucaaradku aysan jeefsan xukunka Xasan Sheekh uga harin, ayna diyaar u yihiin inay la dagaalamaan madaxweyne Xasan Maxamuud iskana celiyaan sida muuqanaysa. xogaha aan helayno sidoo kale waxay intaas ku darayaan in madaxdan markaasi damacooda ugu weyn uu yahay in madaxweyne Xasan Maxamuud xukunka la dhaafiyo loona aqoonsado. haddaba sidee baad u aragtaa? Xasan Sheekh wuxuu wajahayaa maalmo adag. hab xukunkiisii saxda ah uu dhamaaday, waxaase laf dhuun gashay ku ah Shariifku ay qaraabo yihiin iyo Xasan Cali Khayre. waxaana muuqanaysa in tallaabooyinka raggaas ay qaadayaan majaxaabin ay ku yihiin madaxweyne Xasan Maxamuud iyo xubnaha ka tirsan markaasi ee dowladdiisa. adiga ahaan maxaa kaaga baxay aragtidaada noo reeb? waa mahadsantahay. geesta kale waxaan rabaa inaan kula wadaago cagaftii waxay markana dul joogtaa qayb ka mid ah wasaaraddii gaashaandhigga. waxaa kale oo xusid mudan in halkii dabridka ciidanku ku sameyn jireen ee ka soo horjeeda gaashaandhigga la qaatay, waxaana la siiyay baa la yiri sarkaal caana sida muuqanaysa. laakiin xogaha qaar waxaa la leeyahay waxaa socday qorshe wasaaradda gaashaandhigga loogu rarayo dhul laga iibin doono duleedka caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. duleedka Muqdisho ilaa Shabeellada Dhexe ayaa hadda waxaa ka socda baa la yiri dhismaha dhulka cusub ee ay degi doonto wasaaradda gaashaandhigga. dhulka Shirkoole ee gaashaandhiggana waa la iibiyey, ganacsataana la siiyay 7 bil ka hor ayaana la bixiyay ayay leedahay xogtan oo Yaxya Maxamed lagu magacaabo oo Muqdisho ku sugan uu nala wadaagay. markaasi waxaa muuqanaysa marka wasaaradda oo dhanba in meesha laga raro. ma qorshe farsamo dowladda u degsanayda, ma in dhulkaas la boobaa, ma ujeedo kala ilaa iyo hadda ma cadda oo si rasmi ah uma xaqiijin karno. laakiin caadi waxaa iska noqdaba in xarun kasta oo dowladeed markastaahi la raro ama la burburiyo oo la qaato
lagana iibiyo maalqabeeno. waxaa muuqanaysa marka in madaxweyne xasan maxamuud iyo sidoo kale ganacsatada dhulka weli aysan joojin hawshii ay ku jiraan ee ahaa qaadashada dhulalka danta guud, hadday tahay xaafadaha isku raranka ee obsiibka loo yaqaano, hadday dhahay dhulalkii caadiga ahaa ee la iska qaadanayay weliba qaabka aan saxda ahayn lagu qaadanayay. waxaas oo dhan baa la yiri waxay muujinaysaa marka weli in ay Muqdisho ka socoto xaaladii dhulboob ee 2 ilaa 3 sano ugu dambeysay cagacagaftu noqotay xaggee ku sii jeedaan. dadka aadka markaasi Muqdisho waxay aad u hadal hayaan dhulboobkaas iyo sidoo kale wararka la xiriira siyaasadda. haddaba maxaa kaaga baxay aragti ahaan adigu concept nooca aad ka haysataa muuqaalka like saar siina share gareey waa mahadsantahay saaxiib muuqaalkan ila daawo.